waxaan isku dayay mawduuca cabdilqaadir doortay inaan wixii alla iga gaadhsiiyo ama aan ka awoodo inaan ka tilmaamo oo ku saabsiisan qasri اlamal aw اlisticdaadu liyowmi الraxiil rajada adduunka oo lasoo gaabiyo ama se diyaargarow qofka muslimkaahi uu diyaargaroobo maalinta aakhiro waxaa aan u baahannahay runtii xaqaa'iq dunidan taalla inaynu si fiican u fahamno ugu horeyn xaqiiqada qofka bini aadamka ah adduunkan waa daaru mamar waa meel socod lagu marayo qofka bini aadamka ahi muddo kooban buu joogayaa mana aha meel nagaadiya sida ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku yaalla waxa uu ku tilmaamaya xaqiiqada qofka insaanka ah waxau nebigu ku tilmaamay khad buu jeexay square yar buu sameeyey markuu square afargeesood yar sameeyey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xariijin ka dhex saaray xariijinta intii squareka dhexdeeda ku jirtay buu xariiqo yaryar dhinacyadeeda ka jeexay dabeetna nebigu wuxuu ihi kani waa bini aadamkii ajashiisu sidan bay ugu wareegsan tahay yacnii laabud inuu dhimanayo geeridu dhan walba way ka xigtaa oo wuu geeriyoon doonaa xariiqdan dheera arkaysaanee ka baxday dhaafsisan boxkiira ee uu nebigu sawiray dabadda uga baxdayna waa amalkiisa rajo iyo yadidiila uu qofka bini aadamka qabo iyo balaankiisa adduuniya waxa uu ka fekerayo xariijimaha yaryaree hareeraha ka xigana waa mashaakil dunya acraadiha waa dhibaatada adduun oo haddaad tan ka baxdo tan baa ku haleelaysaa haddaad ka maqacdo tan baa ku haleelaysaa si kale haddaynu u tilmaamno waxa weyaan dunidan waxaa laynoo keenay in layna itixaamoba waxaynu u joognaa liyabluwakum ayukum axsanu camala in layna itixaamo waxay culammadu yidhaahdaan meel laysku itixaamona waa qaabkii ugu fiicnaa qaab bini aadam imtixaan loo geliyo waa the best bay yidhaahdaan qofka bini aadamkaa loo itixaamo haddaba insaanku adduunka kan amalkan tirada badan iyo rajadan tirada badan la uu isa siiyo waxay culammadu yidhahdaan laba sababood baa inta badan keena oo ah aljahlu wa xubu dunya idan xaqiiqada koowaad waa inaynu adduunka u joogno in layna itixaamo xaqiiqada labaad aynu wada rumaysanayna waxa weeyaan geeri in dadku dhammaantii geeriyoon doono waa xaqiiqo gaal iyo muslimba la qirsan yahay waxaa kugu filan adiga dadkii aad ku abtirsanaysay ama ku dhalay waa kaa horeeya mostly adiguna yaron dawey adna waa sallaankaad saaran tahay waad daba socotaa si awgeed baa ilaahay subxaanaه wa tacaala nebigiisii wuxuu ku leeyay innaka mayitun wa innahum mayituun baa ilaahay yidhi adigu mid geeriyoonaya baa tahay mayit baa tahay baa ilaahay ku tilmaamay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wa innahum mayituun iyaguna waa geeriyoonayaan baa ilaahay yidhi kullu man calayha faan dunida waxa kor saaran oo dhammi waa dhammaanayaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in midta fahum اlkhaaliduun adiga hortaabaa ilaahay leeyahay bini aadam aan waaris siinay ma jiro gaalada waxay odhan jireen wuu dhiman doonaa raybal manuun bayn la sugaynaa waa maalmuu inugu qaylinayaa dani wilivas waa geeriyoon doona ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala adiga hortaaba bini aadam waaray ma jiro afa in midta fahum اlkhaaliduun baa ilahay yidhi oo adigu haddaad dhimato ma yagaa kaa hadhaya ma yagaa waaraya baa ilahay leeyahy subxaanaه wa tacaala idan adduunkan iyo dadka saaran oo dhammi xaqiiqada labaad aynu ognay waxa weeye in la wada geeriyoon doono xaqiiqada saddexaad aan ognahayna waxa weeyaan daari lmamar waddadan safarka markaynu dhaafno
inaynu ilaahay la kulmi doonno xisaabna waajihi doono ilaahay intaad la kulanto subxaana wa tacaala liqaa'a allah iyo xisaab iyo janniya naari inay ka dambeeyaan sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum ثuma turadduuna ilaa caalimi algaybi waالshahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun geeridanaa ka carcararaysaan baa ilaahay leeyahy cid walba inaga midaba geerida diyaaru maaha waa ka baxsanaynaa marka wadnuuku xanuuna madaxu ka xanuun dhakhtarme iyo yaa wax tabiiba iyo yaa nafta igu qabtay weeyaan waxaynu la wada ordaynaa cidina ma rabto inay hore uga baxdo ilaahay wuxuu leeyahay geeridanaa ka ordaysaan fa innahu mulaaqiikum waa idinla kulmaysaa mahma aad cararto waa kula kulmaysaa ثuma turadduuna ilaa caalimi algaybi waالshahaada dabeetana waxaa laydiin celinayaa baa alla leeyahy subxaana wa tacaala rabbi og waxa muuqda iyo waxa qarsoonba waxaad qarsatay waxaad ku fakertay waxaad keligaa samaysay wax kasta oo qarsoon caalimi algaybi waالshahaada ilaah wax walba og baa u tegaysaa kadibna fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay yidhi wuxuu idinka warramayaa markaa wixii aad samayn jirteen oo dhan waa xaqiiqada saddexaad markaa dunidan inaynu imtixaan u joognaa waa kow amalkeennaasi ha iska dheeraado laba waa inaynu geeriyoonayno qof waliba geeri la kulmaya saddex waxaynu leenahay waa inaynu ilaahay la kulmayno subxaanahu wa tacaala oo xisaab iyo janno iyo naari dambayso kullu nafsin daa'iqatu اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ilaa mataacu اlguruur naf waliba waa go'aysaa baa ilaahay yidhi waxaana laydiin dhammaystiri doonaa maalinta qiyaame wixii aad shaqaysateen adduunka waa laga yaabaa camal saalixa intaad samayso haddana inaad kadeedna iskala kulanto waa dhacdaa adigoo acmaal wanaagsan samaynaya in imtixaanku kugu sii kordho ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaad shaqaysatay wax kasta ha ahaatee kaa lumi maysa baa ilaahay leeyahy shaqadaada oo dhammaystiran goobta lagu helaya adduunka maaha innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama naf waliba wixii ay galbatay ama ay shaqaysatay maalinta aakhiraba ilaahay le ayuu u oofinaya u dhammaystiraya haddaba maalintaas baa ilaahay yidhi faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz maalintaa ninkaa naar laga fogeeyo ee janno la geeya warkaasunbaa liibaanay baa ilaahay yidhi qur-aanka ereyga fawz iyo faa'iziin iyo fawz اlkabiir iyo fawz اlcadiim iyo fawz اlmubiin baa ku soo arooray intaba aakhiray ku saabsanya wax adduunkoo fawz la yidhaha qur-aanku ma qorin ereyga fawz iyo faa'iz iyo faa'iziin iyo fawz اlcadiim iyo dalika alfawz اlkabiir alfawz اlmubiin intaba qur-aanka waa ku soo aroortay xawaalay 16 jeer bay fawz اlcadiimku ku soo arooray iyo kabiirku intaba aakhira ilaahay kaga warramaya yacni adduunku kaannamaa wax weynoo la tilmaamo ma aanu ahayn ama guulayso ama guul darrayso its matter of days waa maalmo yar oo aad ilaabaysa weliba waxay uga dhigan tahay adduunku qofka bini aadamka maanta waxaad cuntay iminka ma dhadhamin kartaa cunnadu intay qiimo leeday intay afka ku jirto cunnadu hadday afka dhaafto dhadhan ma leh dhadhanku waa intay afka ku jirto addunya kullaha waa caynka waxaad soo martay oo nimco o dhan haddii iminka lagu weydiiyo it has no meaning dhadhankuuma leh qiimo ma leh waxaa dambuunbaad sileedayba mala ka fiican wixii hore qiimo kuuma samaynayo sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay war meesha guushu jirtaa ama guuldarradu jirtaa waa aakhiro wama alxayaatu اddunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay aayadda ku gebagabaynaya oo nolosha adduunya miyay tahayba bidhbidh yarow lagu kadsoomo waa waxuu qofka bini aadamka ku kadsoomo ee maaha wax sii waaraya xaqiiqada afraad markaasi waxay tahay maadaama adduunkani daaru mamar uu yahaynu ka tegayno inaynu in badan yididiiladan fog soo gaabinno geerida in badan xasuusanno u diyaar garowno ilaahay wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah xaqa tuqaati walaa tamuutunna
إلا وأنتم مسلمون ورددوا إلهي كعب صدى عبسدوا إلهي حق ليه ويني وينين تألوا حق ليه هجيريونين باليدي إذن كان مسلم هين إذن كان مسلمين هجيريونين معناه دوام حي قفنا جمدا وقت قد من يا مشرو نوّن عد قرنا يساو قرطة إذا ما نسا مشرته هذا بوحى اللي يلي هجيريونين هذو كان مؤمن هين تا معناه دوام حي وقت كست الديار هوية every minute oo noloshaada ka mid ah waa inaad diyaar u ah taageeri garan maysid ma markaad baxdaaba wadnu iska taagi ma gaadha ku mari ma maalmaad sii noolaan doonta walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinku inaan baray habeenkii markuu seexday uu soo tooso alxamdu lilaahi aladii axyaanii wuxuu odhan jiray ilaahay baa mahadle in nooleeyey geeri dabadeed jaanis in la siiyey buu arkayay maadaama waagii uu bariyey أو صاكعي إنه جانس هيستبو أركي إلهي وحين لي مركا ورها جيريوننا إذن كان مسلم هاي ضدك أنت وقو بدن له بنادم كنت يستبدل هو غافل غفلة ده وحا ليلة هذا وحا يا هيد إنا تحصوصته أتساد موغنتهي وحكوها مهم waxa allaha inaad priority siiso horumariso waa dib marisay غفلadu waa noocan idan ilaahay wuxuu leeyahay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii ghaflatin mucriduun dadka waxa ku soo dhowaatay baa ilaahay leeyahay xisaabtoodii waqtigii la xisaabinayay bini aadamku soo dhowaaday laakiin goormuu imanaya wahum fii ghaflatin mucriduun iyagoo ghaflo ku jiro sii jeeda baa ilaahay leeyahay بل إلهي وقت المام يقول اللاهية قلوبهم كوا قلبي يدود تشيدان سأوجد با إلهي القرآن كوحكو لي النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة دك واحد وقدك تا ما لنت مرقده الحسرة أي شدة الندامة ما لنت مرقده تربض انتهي وقدك بني آدمك إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أيها الأحبة ساشا سوي الدين تلا وحي طاي سيلو ديار قروبا مركا قدام لنا هاي حقائق ضاني وحقائق الضبا وقفك مسلم كيو عقيدة سيء ونولو شيء سقصة بايتهين يصامرتو وحين سوي دين إلا ديار قروبا سيلو ديار قروبا وحين نوبا هنا يهرتا إلهي وحولي أمل كان إذن وقت كان إذن لا ديري ووح قابا سو قال الله هذا إلهي وحولي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإلهي يوح فوق بيواركيا بريق الله حساب الدورة يبريق آخر لقاله لكن إلهي وحولي ونراه قريبا مد دوبا ونقو أرقنا بإلهي إلهي سبحانه وتعالى يدو قال إلهي كورمي في سورة الحجر بإلهي وحولي ألف لام را تلك آيات الكتاب تلك آيات إلهي وحط المامي تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون كوا قالت با إلهي يدي يهدون كنيسة سيئي مر بعد عدون تاي تمني دونان إن مر ماي مسلم هذا ذرهم بإلهي كتك يأكلوا ويتمتعوا ها عنان وهسكا بربر صدام بإلهي ويلههم الأمل هم مشغوليو رجدا دير إيس قليا فسوف يعلمون وقت دم بيقرن دونان بإلهي سبحانه وتعالى وهي عمر جاين كستول وغسيو وأنا وضع شعال لين وقت دير سيشوغنو لكن إن كستول لغسية ووحير إن كستول لغسية بقول لبا بقول صدح بقول أفر بقول شم بقول لح بقول تضاو بقول ووحير وتصايب هذا هيسطو إلهي بوح لي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون بإلهي أفرأيت إن متعناهم سنين بل كور رب إلهي كوان هدان مدور راحين صنده سنة هدي الله نمعايو لكن كذبوا يما دوحي الله يبوهي
waxba kama tarin wixii ay soo bidhbidhsadeen baa ilaahay leeyahy idan whatsoever aad nooshahay intuu doono ha leekaado maadaama uu gabagaboobayo waa barrito qofka bini aadamka ahi in kastoo uu soo jiray inuu wax yar joogay unbuu haystaa wax yar inuu joogay unbuu haystaa haddaba ilaahay wuxuu ina leeyahay alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazala min alxaq walaa yakunuu kaaladiina uutuu lkitaaba min qabl fataala calayhim alamad faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun war kuwa mu'miniinta ah miyaan wakhtigoodu gaadhin baa la leeyahy miyaanay u cuntamin miyaanay in qalbigoodu uu ilaahay dartii u khushuucay iyo dikriga alle uu ku khushuucay iyo wacdiga iyo diinta iyo qur-aanka oo aanay la mid noqonin kuwii iyaga ka horreeyey ahlu kitaabka ahaa ee wakhtigu intuu dheeraaday qalbiyadu engegeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba adduunka bidhbidhsigiisa laynagama manicnin laakiin waxaa laynaga reebay inaynu keligii moodno waxaa laynaga reebay inuu noqdo nolosheenna number one-ka waxa koowaad ee aada balaangaraynayso haddaad iminka safar gelayso safar aanad balaangarayn inta badan ma geshid soceka maaha xataa haddaad one week usbuuc haddaad maqnaanayso waad hodheelkaad degi doonto ama xaafaddaad ku degi doonto iyo cid oo dhan waad la sii hadasha adigoo ka cabsanaya toddobaadka inaad meel xun ku dhacdo waa toddobaad wuxuu laakiin toddobaadkaasi waa inuu balaankiisa aada hubisay oo ku celcelisay oo double check ku samaysay in bookingkaagii diyaaradda iyo kii hodheelku uu fiican yahay gurigii iyo meeshii aad degaysay inay secure tahay waa one week ka waran noloshaadoo dhan meeshaad degi doonto saaad u balaangaraysa waad safraysaa waddadaanad ku jirtaa noloshaada oo dhan meesha aad degi doonto si aad u balaangaraysa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy bini aadamku laa yazaalu qalbu اlkabiiri shaaban fi اtnayn fii xub اdunya wa tuuli اlamal qofka weyn qalbigiisu qayb baa jirta aanu ka gaboobin buu nebigu ku tilmaamay uu dhallinyaro ka yihi meel baa jirta dadkao dhammi dhallinyaro ka wadayay aan ninnaba gabagu ka haleelin waa xaggee waa adduunye jacaylka iyo amalka rajada badan labadaa cid ka gabowday ma jirto ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labadaa qalbiga bini aadamka oo dhammi dhallinyaru ka yahay buu nebigu sheegay ilaahay wuxuu ina leeyahay afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiih kaman matacnaahu mataaca alxayaati اddunya ثuma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin war ninkaanu yabo fiican u yaboohnay ee la kulmi doona qofkaanu janno u sheegnay ee u dadaalay camalkeed la yimi ee la kulmi doona warkaasi miyuu la mid yahay buu alla leeyahay subxaana wa tacaala kii aanu noloshan waxoogaa ugu raaxaynay dabeetana qiyaama kuwa lasoo xaadiraya jahannamo ka mid noqonaya war labadaasi miyay isku mid yihiin baan ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba halkan waxayna keenay blaaninkaynu adduunkeenna u samaynayni markaynu halkan usoo soconnay marnaba kuma jirin qorshahu blaanka aakhira talow maxay xaggay kaga dhacaysaa tirada kuma jirin waa ayaamaha hadhee nolosha saad u survive lahayd baad halkan ku timi waxaa ku habboon haddaba inaynu mar labaad balaangarayno aakhiro xaggaynu qabanaynaa qofka bini aadamka ee gambaling inaad iskaga jirta maa waa ilaahay meeshuu doona ii kaxaynaya ilaahay meeshaad shaqaysataa buu kuu kaxaynaya bimaa aslaftum baa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya kuwuu janno geeyey iyo kuwuu maxay naar geeyeyba faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala dara darra in leeg baa la yidhi oo shara iyo khayr ciddii samaysatay waa la kulmaya bini aadamku laakiin degdegtuu jecel yihi nicmada degdegta ta ah waxaa haddii iminka lagu yidhaahdo bishiiba ma qaadanaysaa $2,000 mise sanadkii baa lagu siiyaa bishiiba $3,000 lagu xisaabiyaa
وارسلنا دي سوقية دور رئيس الله والله بضيدان وقادر يعني بني آدم يحبون العاجلة دقدقتو تعليه وحن هالرأيو تعليه أدون كنا وصدا آخرة هي الجنة اللي شيء جيو هذا الجنة واحد ليدي يونيفرس كان إنه أرجنور دم بيلاك تقف كستبوس كي سبالي عرضها السماوات والأرض والوقت المامية ما عرضها لندني يعني أنت كحيرتنا ما هدي الويد هذا اللندني أنت كحيران بعد هليسة أنت دي لهي دي الويد هذا اللندني أنت كحيران بعد هليسة أنت دي لهي أنت ددالي لهي سهدوا رب السماوات كلها هي يونيفرس كان كون مغضبا إن لك بعد هليسة كليجا أنت هو بحنت هنا دول ديدو أنت هو بحنت هنا دول دداش ولبا هلستة ده قرا ما هداد يد ويدرا مد النار كدرن بعد جلسة أنت هدي يد ويدرا عدل دعميسيد بديل كده هليسة هي النار إذا بني آدم كنت دقدقتو تعليها وحسيها بون إنه آخرة ترى قدر إلهي وحليه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون عندنا أدونك الدونسة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نرشأ الدنيا دلال كذا عدة دونسة نوفي إليهم أعمالهم بإلهي وحي الشقيستين وهو فرنا كطفر مين بإلهي هذا الدنيا الرادس تهي وتحوق هي عقل هي علمي قبل سبوق سادة الدنيا وهري لهي وحاد قشتي وثيلي سبا إلهي كليه وهم فيها لا يبخسون ولبا واحد بخس يرعد خصوصا بين ميسر وحاد شقي سقطي لكن ننك كليلة هي محولي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كون بلان كودر ما أدونك إياه أدونك وكسير يا باي لهي وحي إفورت كشدان عقل حوق العق هرتي مسكح وحيد جلسي مريه هذا وثلث أدونك أنت شوكته لكن إلهي بتولي أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار لكن كواسي حقول تلقى آخر ما لا النار حين ما لها باي لهي وحبط ما صنعوا وحي سمي نوابري وباطل ما كانوا يعملون وحكسوقات ما لهي وحي وذين ودبا إلهي لي آخر وما يدير قلوبي إفورت يحوق يا عقلي يا لعقتوري ما يجري إنه وحنا ورقنا أدينا إنه آخره وحجري وحي داون أتلا دوات خمارة دوات كاثر وقطع فعكما دي أجر ولا هذا العقل بحين توير بطل بحين هذا لكن هذا دول كانوا لقى فائدة يشتري ما شطن ديني يا ما هي واحد سوق سبب ما بيزمم كهذا وده بتلنيسه وهي تنبين الرميسنة ريالتي كاسية ذكي تكلم الرميسنة ابنب الرميسنة يدا ينبسكريني مركل لو هذا النبي عليه الصلاة والسلام محاضر أبي بكر باوح برحابة كيري he was going to investment بالربين السمعية لكن ما يشوف الرميسنة بينبسكريني مركل لو عمر بايد طلب حولي سوق بيكيري ما يشوف الرميسنة بينبسكريني إنه هنا هالكين الرميسان يندي بسكرين عدوى لبا وحو الرميسان يحي أيو حوق قلينية وعقل قلينية واللعق قلينية وقرشينية وكل دالية أبا إلهي سبحانه وتعالى وحين ليه هي ورمتاع الدنيا هكو مشغولنا أدونك نيوكون نقنن ككوات بريورتس كاغا نمبر 1 يو نقنن با إلهي سبحانه وتعالى قضية لماذا علماء يدهدان مسألة ضبط ويدها في السنة وحويان ومسألة الجهل بينها جهل كم حل وجهنا وحيد هذان حقيقة الموت وقف ويسين لو سيا مارو قرني أما السبا إليه وحو الجهل كيهي ما عند الله من خزائن وحا الله نمعه قرآن كيسا كسفين قرآن كهداد فرطو قرآن كأخرية الدوبة وكور رميها وحا الله لي وحيد بن آدم قدر وجرته وكور رميها مع ذلك هداد كلا فرطو وأدكتي بيج قرآن كمدا أما لما بيجوز كسور جدو قرآن كمدا إن الجميع ناس كويدا وأدكتي واي انت أصلا شير لو سعي مركز طبعا قرآن وحا وبضنا وكور رمى ولا بمسألة قضية التوحيد إلهي سبحانه وتعالى جريتان في سي صفات كيسا هي ويريد سي عبسي ديسا بيجاني كو غيري ما جرت القرآن كامل
قضية اللبادي وين القرآن وكور ما وحويان ومسألة آخره جنة إيا النار بيتش كم إذا القرآن كوأت كويسة إنها نشرين بيو بدنت هذا المصحف كان مصاوك للركتو وهذا كيسا محا إلهي مدنانتا انتا اللي قسية انتا وقور رمي انتا وقوع العلية وحال لو وقوع العلية إن جهل جينا اللي فيده إن قرات كينا كورلوغ هذا أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام عمر الصوغلي isagoo xasiir yar salli isagoo ku jiifa oo salligii dhinaca kaga sawirmay carabtu waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dharka caadiga la qaadan jiray wuxuu u badnaa labadeenni go' Soomaalidu xidhan jirtay dabaqada koraysa qamiiska lahaan jirtay laakiin dadku public ah inta ugu badan leh ridaa iyo izaar bay sidan jireen dadka badna ridaagaba may heli jireen saxaabada in badan oo ka mid ah izaar ku haysteen xataa qaar baa izaarka isaga iyo islaantiisa uu ka dhaxeeyay waana islaantu salaada sii tukan karaynin inuu soo noqdo mooyaane intuu masaajidka yimaado oo go'aas siiyo oo ay markaas ku duubto salaada tukata mooyaane haddana noloshaas ay u arkayeen oo ay satisfied ku ahaayeen inagu dee waxaas iska daaya haddii in yar ay baashu isu dhinto majaaca la iclaaniyaa oo ana la soo gaadhada inaga ugu badan laakiin saxaabada iyo dadka kale saan bay u nooleen waayo tan baanay wax weyn u arkayn tan baanay u arkayn in wax ka maqan yihiin saa daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu salli ku seexday ayaa salligii jirhkiisa ku sawirmay salligan baadiyaha iyo dhulkan lagu seexan jiray marka aad ku jiifsatay aan marayo waxba kaa xigin aad soo kacdo xariijimihii baa wuxuu ku sawirmayaa jirhkaaga ayaa jirhkii ku sawirmay cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi low ittakhadta furaashan awthara min hada فراش يرو حلاف ير يعني او كان كرون ما دغتيد بو كيري نبي عليه الصلاه والسلام عمر هو جوابي وحانو جوابي مالي وللدنيا مالي وللدنيا وريا دون محنا كلا غلاي بو كيري إله نفتيد وقعدتي سكوس جفتان كل دارتي أنا يا دونكو إن أنا نسكو أهين بو نبغولي من سفره وقيد هرصدي مثلي ومثل الدنيا إلا كالراكب صار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها أنا يا دونسكو منهم بو نبو كلي عليه الصلاة والسلام من سفره وقيد هرصدي وساعات كنا صدود بتنكت جايتو كفكرية ما كانت سفرتي هذا تسألها جيد هرسم حد كيف فكرتها قفك عادي كان نورمال فكري وحو كفكرها لك حتى يسكك على يرغي الحي حواد ماشي عاد يرى فريستها ما تشيفستي ما كيف فكرتها قولي كردسو والله ده نمك عصوبة عقل غير دونكو هاي بقرضة قصري بقى لو قصري لسا سنة كيو مالين ساهدو وعقل غير دونكو دادك الرميسة لكن بني آدم كعادي مركو نورمال وفكريه كوف يعني وكتامبوك ير أما ضلد ير دكتو هوس هرصده waayo waxaad rumaysan tahay meeshan meelaad waqti badan ku sii bixinayso inaan ahayn saa daraaddeed inaad hore fududaatida hore uga tagtid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay adduunkan dhammaantii aniga agtayda saa sukayay waa meel aan ka sii socdo maadaama aan ka sii socdona furaashkeedu waxba ii kordhin maayo furaashkeedu waxba ina kordhin maayo innagana guri yaroo cidhiidhiya ku jira buu leeyahay waa imisa dee waa laba qoloo mid anigu seexday iyo islaamtu seexatay iyo mid yaroo fadhiya iyo mid yaroo intaasaa ku yar nebi maxamedna gurigiisu calayhi salaatu wasalaam qolka markuu waa wuxuba qol hal qol wax walba isagaa ah kijo iyo fadhi iyo meel la seexday iyo waxaba waa qolkan weliba waa qol marka qof is yidhaahda tuko ka kale meeluu seexda aanay bannaanayn caaisha waxay lahayd markuu salaadda habeenkii u kaco cagahan meesha ku kala yaro fidsadaa dabeetana markuu damco inuu sujuudayo qanshiiriya markaasaan cagaa ka laabtaa waa qol aan laba qof midna inuu seexdo midna inuu tukado aan gaadhsiisanayn qiyaas haddana nolosha wuxuu arkayay inuu nolol raaxale ku jiro umuu arkayay nolol uu ka cawdo ama dhib ku ah ama culays ku ah waayo wuxuu arkayay meesha tani inay tahay meeluu ku marayo maxay safar uu ku marayo wuxuu arkayay inuu u socdo meeshii rasmiga ahayde uu qofku harsan lahaa sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam
saxaabi dhallinyaro abuu garabka qabtay maaha nin weyn oo odaya waa nin dhallinyaro imika dunidu cusubtay xagga dabeetana intuu garabka qabtuu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi ddunyaa kaannaka gariib aw caabir sabiil cabdillahi bni cumar kun fi dunya adduunkan aad joogto waxaad ku ahaataa buu yidhi sidii nin gariiba ama nin jid ka gudbaya meel aad degan tahay ha ka dhiganin baa buu u tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inagu haddaad nin dhallinyaro ah la talinaysa maxaad odhan lahay xoogsoo nin noqo oo daara dhiso jaamacada ka baxa inaga taladeenna koowaad dee waa tamaynu in la rumaysannahay taladeenna koowaad waxay u jeedaa tan sidii wax looga noqon lahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar kaasaa ka soo horbaxay markaasaa la yidhi waa nacin karo markaasuu yidhi nicma arajulu low sallaa billeyl nin buu u fiicnaan lahaa hadduu habeenkiina salaadda ku daro yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kasta uu wax tilmaamayo saxaabada dhallinyarada waxa ugu badanee uu tilmaamaya waa maxay waa aakhiro cabdillaahi ibnu cumar wuu qaatay waaradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabeetana saxaabada ama dadka kale markuu isna wuxu sheegayo xadiidkan markuu sheego wuxuu odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir الصabaax haddaad galabaysato waaga ha sugi has odhanin berrina waad noolaanaysaa ee ku talagal caawa nin dunida ka tegaya waxaad kaga tegi lahayd samee waidaa asbaxta falaa tantadir اlmasaa haddaad waa bariisatana galabta ha sugin wakhud min sixatika limaradik wa min xayaatika limowtik waxaad u qaadataa caafimaadkaaga uga sii sahay qaado bukaankaaga yacnii intaad caafimaad qabto isku day inaad cibaadadaada badsato waayo markaad xanuunsato tamartaa ku gabaysa intaad dhallinyarada tay isku day inaad cibaadada badsato waayo markaad gabowdo bitaalkaa kuu run sheegaya noloshaadana waxaad u sii qaadataa buu odhan jiray aakhiradaada yacnii aakhiro ayaa taarga dadkan u wadahay sida ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saynu u diyaar garoobi lahayn in badan buu tilmaamay waxaa ka mid ah axaadiista ku tilmaamaya insha allah axaadiistan waa wada saxiix uma baahni marka inaan takhrijiyo ama sheego meelihii laga soo qaatay waa xadiid aan saxiix ama xasan hayn sheegi maayo insha allah nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam shan horteed ka haniimayso haniimadu soo maaha waxaa hadda is leedahay yay ku dhaafin shan jaanis ka haniimaysa buu nebigu leeyay intaanay shan kale iman intaad dhallinyarada tahay dhallinyarada waxaa loo jeedaa intaad xoogga tahay ka haniimayso intaanad gaboobin shabaabaka qabla haramik dhallinyaro intaad tahay aanad gaboobin wa sixatika qabla saqamik intaad caafimaad qabto ee aanad bukoonin wa khinaaka qabla faqrik intaad wax haysato intaanay ku dhaafin xoolaha adduunku ama iyagaa kaa tegaya ama adaa ka tegaya either of the two inta adiga aad isticmaalaysaa ama 3 shifti gal ama 2 shifti gal ama waxaad doonta gal waxaad adigu isticmaashaa wax yarun weeyaan waxa kale ama way kaa tegi oo mashaakil kalaa dhici ama adaa ka tegi intaad meel ku ururiso aakhirana su-aashooda kaa horraysa intaad guriga ka sii dhistiyo daariyo wax ka sii dhigto ayaad dhaafi doontaa dabeetana su-aashooda kaa horraysa marka war intaad haniga tee wax haysato ka faa'iidaysa buu nebigu leeyay intaanad faqrinin wa firaaqaka qabla shagl intaad firaaqadatay ka faa'iidayso ee aanad mashquulin dunya alyowm maanta adduunkaynu joogno firaaqadu xanuunaday ka mid tahay xaggaan wakhtiga ku dilaa buu qofku isweydiinaya waa cimrigaagii qayb ka mid oo haddaad xaggaan ku saydhaa ka warran qof xoolihiisa leh intan xaggaan iskaga saydhaa ma rabe haniima waxa ugu weyna aad haysato kabitaalkaaga ugu weyni raasamaalkaaga rasmiga ah waa cimriga inta sanadooda ilaahay ku siiyey inaad dunidan ka shaqaysato ayaa raasamaalkaaga rasmiga ah haddaad kaa waxaad ku samaysay markaad garan weydo raadisa meelaad ku khasaaraysa ka waran xaggaan u sheeko tagaa xaggaan wakhtiga ku soo dilaa xaggaan ku soo jeedaa waa wakhtigaadii aad rabto inaad lumiso nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war mashquulkaaga intaanad mashquul gelin firaaqadaada ka faa'iidayso wa xayaatika qabla mowtik inta aada nooshahay ka faa'iidayso haddaad geeriyooto jaanisku waa dhammaaday ayuha alaxiba cimri dherarkan iyo yididiilada badani tuulu lamal min kaydi shayطaan
وحبائش أو دكتور الشيطان waxa uu ku ugaadhsado iyo wasaawistiisa weeyaan ووحو النبي آدم جرده kaga saaray قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى نبي آدم wuxuu ku yidhi geedda waaritaanka iyo mulki aan dhammaanayn ma ku tusiya amal buu geliyey qur-aankana ilaahay wuxuu ku tilmaamaya إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ما إلهي إن الذين ارتدوا كوة شيستي الدين تسكيتي يضع حقه عضادي كذب محا الصحة محا قلدم قرنيا محا أخرق وأنفعي محا وأنفعي نوا قرنيا إساقو قرنيا أيها الدنادين عمريا كوا حقي ودعين شيطان با قبصدي با ليدي كوا وأملى له كاسا أمل أسميه رجقلين يدي لقلين warkaan idii soo koobe غفladan iyo amalkan tirada badan leh iyo dhibtan maxaa dawo ah dawadu waa koobantay ka koowaad waxa weeyaan aakhira xusuusteeda inaynu badino geerida xusuusteeda inaynu badino inay ku jiraan balaankeenna qorshaheenna inay ka mid noqdaan haddii inaad geeriyoonayso qorshahaaga aad ku darto oo ku xisaabtantid haddaad qorshahaaga ku dartid war berri haddaad aakhiro tagto caawa markaad seexanaysa haddaad tidhahdo war hadday caawaba kaa baxdo talo maxaad ilaahay la hortegaysaa haddaad xisaabtaada ku jirto dan awareness-ka haddaad hesho in sha allah waad guulaysanaysa saa awgeed baa ilahay wuxuu leeyay innahum yarawnahu baciidan wanaraahu qariiba waa inaad qariib u aragtaa shayga kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل نبي حلي عليه الصلاة والسلام حديث كان حسك ومدن ددك يهوري صحابة دي ددك ونكسنا يهوري وحي كبد بادينا كقوليستين باليقين والزهد يقين توامحي وحقائق سنة الرميسان تهي آخرة هي الجنة هي النار هي اللي ويني دي سيسألوك ويدين دون يقين تادور دي سنطة كلابات نوامحي الزهد زهدكو وأدونكو عن قلبي قلينو صحابة ضد دون أدون سوق قليبا جري وقعنتو ذا مري لكن وحي إلهي درتو بحيانية وحي عدسية كدقي وأدونكو عن دقين محي زاهد نمدو ماها فقر نمو ماها هنا فقيرتي صحابة قار وحيستي قار فقراء قار وحبها يسمى ولا هاي قار فرتا قاران با إلهي لعق ميدا كدقى ولا هاي قار يقام وحبها يسنين دنتينا أما شهيدين ولا هاي لكن وحي يسكر رعس سناينا ولا هايين زاهدين با كو حيستينا يدونك قلبي يسكو مجرين كان وحبها يسنينا إنو بابا أيو dhibaato haysato adduunka uu goblamay ma haysanin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka hore waxa ay ku badbaadeen yaqiin iyo zuhdi dadka dambana waxay ku halaagsamayaan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam bilbukhli waalamal bukhligu waa adduunka oo markaad jeclaato waa kugu soo ururaya iyo ku dhaafin وقعنتي قاضي أما الصوماليين ما حيتراها كلمة الصومالية دبتها ودبعال وقف هنتيدا هيستوان ربين إن يسجع دافته وصفات كقرآن كوكت المامية إن السلاد الزولي سحتها إلهي محولي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين بإلهي قدم يسي صفات dadka markay dhibtu qabsatana argagaxa markay xoolaha helaana iyagu isku kooba waa sifo aanay kuwa tukada lahayn baa ilaahay yidhi kuwa dhab salaadoodu tahay salaad fiican ay tahay sifada ma laha baa ilaahay ku tilmaamaya saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya dadka dambe waxa halaagi doona
bakhaylnimo iyo amal rajo badan oo qabo xadiidkii shadaad ibnu aws uu soo warinayay imaam tirmidi iyo ibnu maaja soo saareen sheekh alimaam nawowina riyaad saalixiin ku qorayay inkastoo uu alimaam alalbaniy tadciifiyo macnuhu laakiin waa un saxiix xataa haddaa nebiga loo nisbaynin calayh salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa alkayisu man daana nafsah wa camila lima bacda almowt fariidku kiyaasa caqli badanuhu waa ninka naftiisa xisaabiya ee u shaqaysta geerida waxa ka dambeeya raganimada iyo ninnimada iyo caqli badnida iyo wanaagga ninka ahi waa ninka xisaabtama ee u shaqaysta aakhira baa lagu tilmaamay waalcaajisu ka wax mataree leysigaahina waa man atbaca nafsahu hawaaha watamana cala allah waa ka naftiisu waxay doontaba iska yeela ee haddana dhanka kalena rajeeyey tamani ilaahay in sha allah waxba yeeli maayo rabbi waa naxariisan doonaa xaggana tamaniyaad buu ka wadaa xaggana waa maxay waa sii lumaya qur-aankana ilaahay wuxuu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suu'an yujza bih ilaahay wuxuu yidhi war ammaanidiinna iyo ammaanida ahlukitaabka midnaba maaha man yacmal suu'an yujza bih ninkii xuma sameeya waa lagu abaalmarin dhanka kalena waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura waman araada alaakhira ka aakhiro doonaya marka hore aakhiro doonis bay u baahan tahay cid aakhiro doona aan adduunyo doon ahayn marka labaadna waxaa la yidhi wasacaa laha sacyaha u shaqaysta shaqaday u baahan tahay asacyu huwa alxaraka dhaqdhaqaaq ula yimaada baa la yidhi kow weliba dhaqdhaqaaq o dhan maahae waa sacyiha asacyi aladii yanfacu fi laakhira la imanaya qofka sacyigaa sameeyo qura isagoo mu'mina fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura kuwaa shaqadoodu kuwa looga abaalgudo bay noqonayaan baa ilaahay yidhi mashkuurku yacnii waa looga abaalgudkooday helayaan ilaahay ba subxaanaه wa tacaala sacyigoodaasi aqbalaya ayuha alaxiba nabigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo rabo saxaabadiisa inuu tusiyo acmaasha adduunka ee aakhiro wax ka tartaa waxay tahy ayuu wuxuu soo maray xabaal dabeetana saxaabadii la socday buu wuxuu yidhi man saaxibu hada alqabr xabaashan yaa ku jira waxay idhahdeen fulaan waa xabaashii hebel xabaal buu nebigu soo maray nebigu saxaabada xabaalaha dushooda wuu ku wacdiyi jiray suuqa baacmushtarka markay joogaan waa wacdiyi jiray masaajidka waa wacdiyi jiray meel walba innaga wacdigeennu dunida inta kaloo dhan intuu ka soo ururay buu wuxuu isugu soo ururay salaada dabadeeda iyo masaajidka inta uun diintu in halkan lagu sheego ama adduunka intiisa kale waa la xoogsi tegey weeyaan nabigu calayh isalaatu wasalaam meel kasta uu marayo saxaabadiisa waxbuu u sheegi jiray dabeetana xabaal buu soo dulmaro war xabaashan waa kuma buu yidhi waxay dhahan waa xabaashii hebel dabeetana nebigu isagoo saxaabada la hadlay wuxuu idhi ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum kan maanta haddii wax la weydiin lahaa laba ragcadood ayuu adduunka haysataan oo dhan ka jeclaan lahaa innaga laba ragcadood adduunka may nagala qiimo badantay waa maya waxaynu is leenahay ragcadaha beri dambaad iska tukan doontaa horta xoolaad heshid laakiin nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kaa xabaasha ku jira maanta haddii la weydiiyo laba ragcadood oo ilaahay u tukado ayaa agtiisa kaga fadli badan uu ka jecel yahay maxay saa'iri dunyaakum ragcataani axabu ilaa hada min baqiyati dunyaakum walidaalika uu nebigu muxuu tilmaamay ragcatay alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcadood sunna la tukado salaada subax ayaa ka khayr badan baa la yidhi adduunka iyo inta saaranba intee buu balaankiisa ku jiraa markaa inaan labada ragcadood salaada subax ka horeeya dhaafin oo labadii subaxaaba khatar ku jiray labada sunna ka horeeya ka kaalaya labadii faralka ahaa ayaa khatar inteena badan kaga jira ayuha alaxiba yaa laytanii waxba ma tarto yaa laytanii layta waxa mustaxiilka ah ama wax
helisteedu ay baciidulmanaal tahay baa lagu isticmaalaa af carabiga. yaa laytanii qadamtu lixayaatii aakhira haddaad tidhaahdo markaa waa mustaxiil, waktigii kaa dhammaa. yaa laytanii qadamtu lixayaatii rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt. doodahaasi way dhammaanayaan. maantaynu jaaniskii haysanaa. maanta dadka inta badani caafimaad qabtaa. maanta dadka inta badani waxay cunto haysataa. maanta dadka inta badani meelay seexata haysataa. adduun waa intaa ka badan maayo. aakhira markaa ma u xoogsanaynaa. adduunku la sheegaya waa intaa. waa waxaad cunto inaad hesho, meelaad seexato inaad hesho, waxaad huwato inaad hesho. intaa haddaad hesho ka badan maayo. waxaynu ku kala gedisanay waa intaa nooceeda. inaad tidhaahdo adna shaadha cudbiya baad sidataa, adna mid silikoraa sitaa, ama mid silvera baad sitaa, inaad ku waranto. waa intaa waxa inoo dhexeeya. laakiin labadeenaba shaarkii waa sidanaa. idan meel la seexdo iyo wax la cuno iyo wax la huwado adduunku ma dhaafo. sida awgeed intaanan laytani odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu maa qadamat ligadin waاtaquu اllah in allaha khabiir bima tacmaluun walaa takunuu kaladiina nasuu اllaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum اlfaasiquun. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala, war kuwa iimaanka laga helayo alle cabsidiisa ogaada oo waltandur nafsu maa qadamat ligadin. nafi ha eegto berri maxay ugu tala gashay. ila waad dhimanaysaa ee berrita maxaad ku tala gashay. godkan yar aad ku socoto maxaad ugu tala gashay. waataquu llaha in allaha khabiirun bima tacmaluun. war alla ka cabsada, ilaahay khabiir expert buu ku yihi waxaanaad samaynaysaan oo dhan. ilaahay qulubteennu daalacanaya. waxa dhabta aynu ku fakerayno iyo waxa dhabta aynu daraynayno iyo waxa dhabta aynu xiisaynayno u ogyahay. afka waa iska ducaynaa dee erayo af carabiyo aynan garanaynba waxay yihiin. intaynu saxaabada kor taagna waan idhahnaa. laakiin maxaa qulubteenna ku jira rabbi subxaanahu wa tacaala intaanay gaadhin markaa. walaa takunuu kaladiina nasuu llaha. ilaahay wuxuu leey waar ha la mid noqonina, ha noqonina sidii kuwii ilaahay ilaabay aan xisaabtaba ku darsanin. dabeetana rabbina maxay nasiyow, ilaahayna uu ka tegey. kuwaasi waa kuwa faasiqiinta ah. low ana lii karatan faakuuna min almuxsiniin. intaan aakhiro la odhanin low ana lii kara, alla maan jeclaan lahaaye inaan yeesho noqosho oo faakuuna min almuxsiniin, kuwa wanaagsanaadaan ka mid noqon lahaa markaasi. haddaynu jaaniska haysanaa. si awgeed buu nebigu calayh الsalaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku odhan jiray akiruu min dikri haadimi ladaat. akiruu badiya xusidda ka macaanka gooye buu nebigu odhan jiray. ka macaanka gooye waa geerida. kaa xuskiisa iyo soo hadalqaadkiisa iyo ka warankiisa badiya si uu aakhiro wax idiin taro. warkaygu wuxaan ku koobayaa waxaynu nool nahay, waynu ku dhaqannoo la joognaa duni materialist ah. dad materialku qiimaha ugu weynu joogo. dad xataa bini aadamku uu u kala qiimo badan yahay sida jeebkooda waraaqaha ku jira ay u kala badan yihiin. are you billionaire or millionaire? mise xoogsatada muruqmaalka ah baa tahay. dad uu ku qiimaysan inta jeebkooda lacag ku jirta. therefore qof kastaaba hadduu dadku la nool yahay kaaye wuxuu is leeyahay gradeka sare ku biir, dabaqada sare, dabaqadan kaadixaa dhaaf, dabaqada shaqaalaha ka tallow, middle classka tag ama upper classka tag ama kor u sii soco. indha ku garaad laynoo ishayna intaasaa hor taalla. ilaahayna wuxuuna leeyahy wartan waa ka tegaysaan. waxaynu u baahanay markaa inaynu caqliga isticmaalno. caqliga inaynu isticmaalno. ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwa caqliga si fiican u isticmaalaa inaanay naarta gelaynin. kuwii naarta galay ilaahay muxuu qur-aan ku sheegay fii suurati tabaarak.
tabaarak maxaa lagu sheegay low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fi asxaabi saciir haddaanu dhaguhu noo dalooli lahayna wax maqli lahayn ama aanu caqli lahaan lahayn bay leeyihin saciira maanta maanan galleen innagu maanta haddaba jaaniskii baynu haysanaa adduunkana waa joognaa waana ognay inaynu geeriyeyna sugayso wakti aan durugsanaynu qofba maruu bixi doono waad og tahay in intii adiga wax ku ahay marka adeeradaa madhaan ee awowyadaa madhaan ee ayayaa madhaan adigu dadka waxu noqoto maanta anigu dadkan waxu ahay in waxay ahay dunida ma joogto yani markaad adigu dadka waxu noqoto ee dadkii wax ku ahaay oo dhan aad weydo waxaad garanaysaa halkay kaaga horeeyaan waxaad ogtay dadkoo dham inuu halkanuun u socdo dan waxay tahay inaynu wada diyaar garowno waxay tahay inaynu aakhiro u diyaar garowno oo ugu diyaar garowno maxay عمل صالحة هي إيمان نبا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريو شيخ مصطفى نقول حسوسيي إن نوحد حيدنو وإن أديار قرونو آخر ذين الدنيا ذن أنا معنا لحين لقد تغينا dadkii inagu horreeyayna ay tageen imka sheekhu wuxuu sheegay in wax u haynaanay nooleyn wuxuuse wax u yahay mooyaane abtiyaal adeerayaal qolyihiina kaloo ku daba jirnaa nin laba u nool yihiin mid u nool yahay qolyaha yar imka soo kacaya kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa aniga iyo waxa iga weyn marka xusuusin iyo waano iyo waxu sheegid inoogu filan sheekhu inoo sheegay waxaynu u baahannahay in aynu ku camal falno ilaahay iidankii oo aynu noqonno kuwa aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana markay hadalka maqlaan ku camal fala marka ay naga muuqato cibaadadeenna camalkeenna weliba gaar ahaan qolyaheenna xaafadda degan in ay inaga muuqato in aynu cibaadada ilaalinno masaajidka ku ilaalinno gaar ahaan salaada subax in aynu soo buuxinno alxamdu lilaah dad badan ayaa yimaada laakiin waxaynu u baahannahay inteenna xaafad degana istaqaana in yar baa ka timaada marka aynu isdhiiri gelinno oo aynu ku wada dadaalno cibaadada sheekhu waa kii inoo sheegay labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu inoo soo wariyey inay adduunyada iyo wax dul saaranba ay ka khayr badan tahay faradkii maaha sunnihii baa laga hadlaya labada ragcadood ka horeeya fajirka laakiin sheekhu wuxuu tilmaamay in labadii fajirku ay luuqii nagaga jiraan waxaynu ka soo saarno oo jidcaddaha aynu keenno oo aynu ku dadaalno cibaadada ku dadaalno la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala u diyaar garowna sida ilahay ula kulmahay subxaana wa tacaala hamaddeenna hamad aakhira ha noqoto investmentka iyo meesha aynu waxgashanaynaana waxa wanaagsan aakhira ha noqoto ilahay idankii subxaana wa tacaala iminkana wakhti kooban baynu haysannaa oo aynu su'aalo xagga raggana dhowr ka qaadan doonno xagga dumarka hadday wax soo diraanayna dhowr aynu ka qaadan doonno marka